qaabka wejigaagu waxa uu wax badan ka sheegayaa dabeecadahaaga hoose ee kuu qarsoon ee aan loogeyn. haddiise aad leedahay wejiga u samaysan qaabka dheemanka, waxa aad tahay qof aad u qurux badan oo soo jiidasho badan, taa cidna ha weydiinin. haddiise aad leedahay wejiga u samaysan qaabka ukunta, waxa aad tahay qof aad u caqli badan, sidoo kale aan la khiyaamayn karin oo wax kasta si degdeg u fahma. haddaba daraasadani afartan nooc ayaa ay u qaybisay wejiga ibniaadanka ee adigaagani daawanaya nooca uu yahay wejigaagu, adigoo ku qanacsan kuna faanaya commentiga hoose nagula wadaag. haddii aan ugu horeysiiyo dad kale wejiga u samaysan qaabka ee ama wejiga u samaysan qaabka kubadda, waxaa la sheegay dadkaasi inay yihiin dad aad u hurdo jecel, sidoo kale inay yihiin dad aad u burburan oo cayilan. sidoo kale dadkaasi waa dad aan jecel buuqa iyo muranka iyo isqabqabsiga. sidoo kale dadkaasi waa dad leh dabeecad aad u degan. sidoo kale dadkaasi hore uma xanaaqaan. haddii aan ku xijiyo dad kale sawirka wejiga B, wejiga u samaysan qaabka leydiga, waxaa la sheegay dadkaasi inay yihiin dad aad u naxariis badan, sidoo kale jecel inay dadka caawiyaan. sidoo kale dadkaasi waa dad aan aad u kibir badnayn oo aan isda weyneyn. sidoo kale waxaa la sheegay dadkaasi inay yihiin dad dantooda yaqaana, sidoo kale shaqo jecel oo aan aqoonin dan la'aanta. sidoo kale waa dad aad u howlkariina oo hawsha loo diro si wanaagsan uga soo baxa. haddii aan ku xijiyo dad kale wejiga u samaysan qaabka C, qaabka ukunta, waxaa la sheegay dadkaasi inay yihiin dad aad u caqli badan, sidoo kale waa dad aad u feejigan. sidoo kale waa dad ay adag tahay in la khiyaamayo oo khiyaanada markiiba waa ay fahmaan. sidoo kale waa dad jecel soo dhaweynta iyo baashiraada. sidoo kale waa dad leh aragti dheer oo meel fog wax ka arka. haddii aan ku xijiyo sawirka D, dad kale wejiga u samaysan qaabka dheemanka, waxaa la sheegay dadkaasi inay yihiin dad aad u qurux badan, sidoo kale soo jiidasho badan, sidoo kale leh weji aad u furan oo agtooda laga helo farxad. sidoo kale waxaa la sheegay dadkaasi inay yihiin dad aad u bulshaawiyiina oo ku wanaagsan saaxiibtinimada. sidoo kale dadkaasi waxay leeyihiin dabeecad aad u degan oo dadka si wanaagsan ayaa ay u fahmaan. haddaba adigaagani daawanaya qaabka uu yahay wejigaagu adigoo ku faraxsan kuna faanaya commentiga hoose nagula wadaag.